السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كبا إنه سعودي عشر كاسوها والشفاء لما في صدور القرآن كانوا الشفاء وياها لابتين للنظيفية لابتين للعافية إنه ضروري تاعي إنه مهم تاعي إنه واحد كومباسر يا تاع صوبت لابتها دينا عاف ما ذهين وحد نقرأ دي قف قافلة نقرأ إلى القرآن كيس كلية هي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أدونك وحال اسكو قفانا مالك إيه أولاد إيه وحصل اسكو قفانا لكن إلهي آخر وحكاربا قلب سليم قف كان قلب سليم هي سن المركة وقفتي خساري وهوجي إلى بان كما قال قلب سليم كمركة سيلو هلا لبا شيء بان كهذا مانتا لبا شيء إن نفطا إن كو طبقت oo labada shay casharkaasina naftaada inaad bartid kow horta alqina nafsi naftaada inaad qina ka dhigtid seen qina uga dhigi kara naftaada waxaa qina uga dhigi karta wax kasto ilaahay ku siinaad ku qanacsan tahay adduunyadaada dhan noloshaada dhan waxaad haysatay caafimaadkaaga quruxdaada jismigaaga shay kasto ilaahay ku siiyay inaad ku qanacsan tahay alxamdulillah ilaahay aday siiyay because waxaad xoog iyo xeelad ku keensatay ma wuxuu ilaahay ku siiyay allahumma barik li fi ilaahay i barakina dhaahdo ku qanacdid waxaad ku haystaan inaad indhaha ka laabtid qof baa uu qosol qurxoon yahay qosolkiisa rabtaa inaad adi lahaan lahayd kaaga ma ku qanacsanid qof baa wuxuu ilaahay siiyay indho qurxoon markuu saas indhaha kala qaado ku soo fiirina ma sha Allah ma dhaaysan indho qurxoon fiirid qurxoon u leeyahay waxaad jeclaan lahayd bendha inta qof laga soo qofkaas inta indhahaas laga soo dhaxsaaro inaad lagu dhax gilaaba jeclaan lahaydba yani waa tusaale yar yaraan ka soo qaaday qof buu ilaahay wuxuu siiyay maal waxa jeclaan lahayd maalkaas inta laga soo qaato in adiga lagu siiyo maya saas maaha qofkaas wuxuu ilaahay waxa uu siiyay isaga garan maslaxada qofkaasna isaga garanay ilaahay maslaxadaadana ilaaha garanaya soo marka wuxuu ilaahay ku siiyay ilaahay ku siiyay qof kale muuna siinin waxa qofka kale uu siiyay qofkaas ba iska leh maalintu qofkan afar bilood calooshooda ku jira ee risqigiisa loo qoray marka risqiga waxaan u naqaan anaga maalkii tamaya noloshaada dhan wuxuu ilaahay ku siiyay waa risqigu ilaahay ku siiyay inaad taas ku qanacsan tahay oo naftaada ku faraxsan tahay oo ilaahay uga shukrinaysid kow taas horta waa caafimaadka koowaad ee qalbiga laba qalbigaaga wixii dhibay soo gaaray kow laba saddex inta dhaadi inaad qalbiga ka nadiifisid maxaad kaga nadiifinaysaa istighfaar tasbiix qur'aan inaad quraanka isku tuftid cafiska inaad badisid sababtoo alaabtaas hadayna wixii soo gaaray dhib hadayna cafinin ma caafimaadayso qodobka kale waxaa waay marka iyadana dadkeenaadan dhibaateynin dadka kugu hareereysan inayna qalbiga kaa dhibsan dad waxaa jira hadlaaya hadday hadlaan xitaa ma maqlaysid awal baad ka tahay dad waxaa jira aan hadlaynin hadday aamusaan waxaad u malaysaa inay kugu faraxsan yihiin laakiin adiga dhibkaagu waa joogteyn markasta wax dhibaaya sameynaysaa dadka isla markasta waxa fiican ay dhahaan walaalo waxaan kugu dhibsanay hadii jiraan cafi ii sheeg waan saxaya adduunyada waxaa lagu noolyahay maalin kastaba inuu qalin iyo buug la qaato wixii xun laga tirtiro wixii fiican la nood gareeyo oo lagu dhaqmo ilaahay looga mahad celiyo marka hadaa tahay marka qof khaladaadkiisu badan yahay dhacdhiisa badan yahay carabkiisu xun yahay subxaanallah khalad weyn baad ku jirtaa naftaada inaad dhibaateynaysaa oo qofkaas intuu qalbigiisa kaa karaahsanayo adiga irsaaqadaada ciriiri bay gelaysaa irsaaqadaada maxaa kamid caafimaadkaaga kamid farxadaada kamid noloshaada dhan baa waxay gelaysaa ciriiri sababtaad ciriiri u gelaysidna ma garanaysid jas ciriirin baad ku jirtaa bilaa farxadun baad ku jirtaa kullama qof qalbigiisa dhibic aad ku dhibicisid oo xumaato ah adigana ogow taada ayay ka go-an tahay wax kastood beeratido wanaagana midhaheedu waad leedahay wax kastoo wanaagood xumaysidna midhaheedu waad leedahay marka adiga taad qaadan lahayd aday ku taalaa soo marka waxaa laga rabaa dadkana dhibkaaga aad ka ilaalisid wixii dhibaad geysanaysid inaad dhibkaaga inaad aad iyo aad uga ilaalisid wixii dhiba lagu geystana ficil xun inaadan ku ficiltamin qofkaas jaahilnimo u geysay inaad ilaahay u barisid kala hadashid ficilkaas waa ficil xun iska dhaadid idfac billatii hiya axsan adiga markasta baad la timaadid ilaahayna aad ku xamdisid qofkaas xumaatada sameynaya inaadan adiga ahayn qofkan qofka dhibaaya inaadan adiga ahayn qofkan loo samray inaadan adiga ahayn inaad marka taas ilaahay ku xamdisid awooddaas iyo quwaddaas ilaahay ku siiyay dadka inta badan samirka badan cafiska badan idfac billatii hiya axsan ku dhaqma doqomaa loo yaqaana ma arsada loo yaqaana wax matira loo yaqaana wuxuu yahay male dhiig mala loo yaqaana laakiin qofkaas ayaa ilaahay agtiisa ka ah qalbu saliim ilaa man ataa Allah biqalbi saliim qofkaas ayaa noqonaya ogow wax kasto ilaahay agtiisa qaali ku ah adduunkan dhib badan baad kala maraysaa dheefteeda aakhirad ku helaysaa laakiin dhib badan baad kala maraysaa dhibkaas qaabkaad ugu samiraysid iyo qaabkaad naftaada uga nadiifinaysid ayuu ilaahay markaa reward badan ajir badan kugu siinaya
adduunyadaada ku arkaysaa saad u nooshahay farxadaada xasilnaada qab gabadh baa arkaysaa oo iska faraxsan tahay gabadh baa waxay tamaninaysaa gabadhaas farxadeeda inay ku noolaan lahayd laakiin ma ogid gabadhaas samirka iyo qaabka ilaahay ula xidhiidho iyo xiriirka ilaahay la leedahay iyo say maxaan ku dhahay nafteeda u qanacso qina nafsi qaabka ugu nooshay ma garan kartid marka waxaad leedahay alle hiblaayo haddaan iska noqon lahaa hiblaayadaas waxaa laga yaabaa banaanka markaad ku aragtid inay faraxsan tahay qurxoon tahay laakiin gudahana ay ka gubanayso ma garatid